waan salaam dhamaan saaxiibada ku xiran janaalkeena aad ayaan idinkaga mahadcelinayaa sida wanaagsan aad ula socotaan muuqaaladan bartan soo dhigo soo dhawaada saaxiibayaal maanta waxaan rabaa inaan idinla wadaago xog iyo xaqiiqooyin u gaar ah filimka caanka ah Meela kaasoo kamid ah aflaamta ay Soomaalidu qaar aad u jeceshahay daawashadiisa haddana waxaan idin wadaagi doonaa xogaha laga diiwaangeliyay filimkani Meela balse intaan ugu gudagalay muuqaalkayga waxaan ka codsanaynaa janaalka soo birto subscribe saarto haddii uu muuqaalku cajab geliyo like inoo saar wixii ra'yi qabto comment-ka hoos noogu reeb sii share garay oo la wadaag asxaabtaada soona dhawaada saaxiibayaal waa tahay saaxiibayaal filimka Meela waxa uu ka mid yahay aflaamta xilligii shileemooyinka aad kala xiiseyn jiray daawashadiisa waa mid kamid ah aflaamta ay Soomaalidu xilligaasi aan dhahay dadyoga shileemooyinka daawan jireen aad u xiiseyn jireen inay daawadaan markaan eegno filimkan saaxiibayaal waxa uu soo baxay 7 January sanadii 2000 ayuu soo baxay waxa hogaamiyalka wada ahaa Mirqaan Tawakal Karna Faisal Qaan Tinu Varma John Lover Soomaalida dhan Amadi Nanvida Nishan Asrani Tiku Tislaniya Soomaalida Isciil ama Isciil ay ugu yeeraan waxa kamid ah dadyoga kale ka soo muuqday ninka lagu magacaabo Tanvi Azmi Ayub Qaan ayaa sidoo kale filimkan ka soo muuqday Buronzin markaan eegno filimkan waxa agaasimo ka ah director ninka lagu magacaabo Dharmesh Darshan oo halka uu soo saaray uu ka yahay Ganesh Jain ninka lagu magacaabo muusigada waxa uu garaacay Anu Malik sidoo kale Hrithik Roshan adeerkiis ninka lagu magacaabo Rajesh Roshan ayaa filimkan muusigada u garaacay heesaha filimkan waxa qoreen Dave Kohli ninka lagu magacaabo iyo sidoo kale agaasimaha filimkan ninka lagu magacaabo Dharmesh Darshan iyo sidoo kale Sameer waxa kamid ah dadyoogii markay timaado heeso qorooga loogu dambeeyay jiray sagaashameeyadii markaan eegno filimkan saaxiib tiyaatarada la saaro waxa lagu sheegay 320 tiyaatar waxaan lagu qarash gareeyay 18 karoor oo lacagta Hindiya una dhiganta ugu yaraan ama ku dhawaad 2 milyan weeyaan saaxiib markaan eegno lacagaha uu keenana waa 15.19 karoor ayuu keenay saaxiib natiijada waxa uu noqday filim flop ah ama filim guul dareystay markaan eegno filimkani darajadii sanadkaasi uu gaaray dhanka lacag soo xareynta marka la eego aflaamta lacagaha ay keeneen waxa uu ka galay kaalinta sagaalaad ama filimkii sagaalaad ee lacagaha ugu badnaa soo xareeyay ama lacagihii ugu badnaa soo xareeyay sanadii 2000 saaxiib codeynta laga qaaday dadyoogii daawada sheekadiisa filimkan waxay siiyeen 10.3.8 taasoo cadeynaysa in filimkan sheekadiisa ay aad u liidato marka la eego dadyoogii u codeeyay filimkani xaqiiqooyinka laga diiwaangeliyay ayaan eegi doonaa dhowr xaqiiqo ayaan eegi doonaa xaqiiqada ugu horeysa waxa la leeyahay tishada caanka ah Tawakal Karna intaan loo bandhigin booskeeda marka hore waxa la rabay in loo dhiibay tishada caanka ah Karishma Kapoor laakiin waa iska diiday filimka inay jisho maadaama markii la saxiixanayo aan loo carabaabin waqtiga rasmiga ah filimkan la gudagali doono shaqadiisa sidaa darteed waxay tiri sameyn ma karo ama ma sameyn kara ay tiri saaxiibayaal ka cudur daartay sidoo kale dadyo kale nasiibku yeesheen loo bandhigay filimkani inay jilaan booska Tawakal Karna waxa kamid ah Sonali Bandra tishada lagu magacaabo Rafina Tandan labadoodana sidoo kale way iska diideen saaxiibayaal xaqiiqada labaad Adidiya Banjoli ama Indhabali waxa uu taqaan ama Indhacaag ama Nawaab waxa uu taqaanaba ayaa marka hore la rabay in loo dhiibo booska kabalaadarka filimkan ninka lagu magacaabo Tinu Varma laakiin Adidiya Banjoli booskaasi waxa waajib ka ah qofka markuu sameeyo inuu feeraha qaabiyo sida filimkan aad ka daawateen kabalaadarka sidoo ku jiraay sida darteed Adidiya Banjoli waa uu diiday inuu feerihiisa qaabiyo filimka min bilow ilaa dhamaad sida darteed booska waxa nasiib u yeeshay saaxiibayaal ninka lagu magacaabo Tinu Varma oo kamid ah aktarada dhankaasi koonfurta xilligaasi ama koonfur Hindiya caanka ka ah saaxiibayaal xaqiiqooyinka filimkan ama xaqiiqooyinka laga diiwaangeliyay filimkan waxa kamid ah saaxiibayaal waxa leeyahay Amir Qaan ayaa filimkani ku sheegay ama sheegay filimkan inuu yahay filimkiisa ugu xumaa abid taariikhda aflaamta uu sameeyay marka la eego waana saxiixii ugu xumaa uu sameeyay markay timaado in uu filim saxiixo jilaaga caanka ah Amir Qaan saaxiibayaal xaqiiqooyinka filimkan laga diiwaangeliyay waxa kamid ah waxa leeyahay inta lagu guda jiray duubista filimkan waxa isku dhacay directorka filimkan ninka lagu magacaabo Dharmesh Darshan iyo sidoo kale Amir Qaan ayaa isfaham dariwaa soo kala dhaxgashay waxaana nasiib xumo filimkan sidoo kale waxa uu noqday flop sida darteed Amir Qaan waxa uu go'aan ama balan ku qaaday inuu samar dama ama weligiisba uu la shaqeyn doonin directorka lagu magacaabo Dharmesh Darshan saaxiib xaqiiqooyinka filimka laga diiwaangeliyay waxa kamid ah waxa leeyahay filimkan waa filimkii ugu horeeyay ee sameeyaan jilaaga caanka ah Amir Qaan iyo walaalkiis Faisal Qaan ninka lagu magacaabo sidoo kale waxa kamid ah xaqiiqooyinka filimkan laga diiwaangeliyay waxa leeyahay filimkan waa filimkii ugu horeeyay ee daawada sanadii 2000 waxa uu soo baxay 7 January sanadii 2000 saaxiibayaal xaqiiqooyinka lagu dambeeyay filimkan kala wadaagi doona xogayaan saaxiibayaal عليه فيلم كان سيدو كله فيلم كيغوري اسكلا سو مقدان ادشد عنك هاي Tawakal Karna iyo sidoo kale Amir Qaan xaqiiqada ugu dambeeyay filimkan aan kaga soo xuli doono waxa weeyaan waxa filimkan waxa uu taa magaca Meela ka hor laakiin filimkan inta aan magaca Meela loo bixin waxa jira loo film oo birsamaadkii la daawaday laakiin watay ama magacoodu ahaa Meela
mid ka mid waxaa la daawaday sanadkii 1948 halka midka labaadna la daawaday 1971 Meela midkan ama filimka hadda aan ka hadlayna Meelan oo filimkii saddexaad ee magaca Meela loo baxshay saaxiibayaal asigana waxaa la daawaday sanadii 2000 haddaba intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa xogtii xaqiiqooyinkii aan kala wadaagay filimka caanka ah Meela kaasoo ka mid ah aflaanta ay Soomaalidu aad ku jeceshahay daawashadiisa fadlan haddii aad ka heshay muuqaalka like inoo saar janaalka haddii aad ku cusub tahay subscribe inoo saar wixii ilaahay aad qabto comment-ka hoos inoogu reeb sii share gareeyo la wadaag saaxiibadaada waana ku mahadsantahay daawashada muuqaalkeena